qisada Nelson Mandela geesiga halganka iyo samirka. Bismillah, dunida mar walba waxay leedahay shakhsiyaad ka soo dhex muuqda kuwaasoo noqda calaamad uu taariikhda ku xasuusto. mid ka mid ah magacyada si weyn ugu suntan taariikhda waa Nelson Rolihlahla Mandela, nin la dhihi karo wuxuu ahaa astaanta geesinimada, dulqaadka iyo cadaaladda. qisadiisu ma ahan oo keliya mid ku saabsan halganka siyaasadeed, balse waa mid ku saabsan bini'aadantinimada guud. haddii aan yara eegno aruurnimadiisa iyo barbaarinta, Mandela wuxuu ku dhashay 18 Julaayo 1918 tuulada Mavezo, gobolka Transkei ee Koonfur Afrika. wuxuu ka soo jeeday qabiil hoose ah. aabihiisa wuxuu ahaa oday dhaqameed, halka hooyadiis ay ahayd haweeney diimeed. caruurnimadiisa wuxuu ku qaatay nolol miyiga ah, howlo daagsiin iyo nolol fudud. waxaa lagu baray qiyaamka dhaqanka iyo wadajirka bulshada, taasoo mustaqbalka ka dhigtay nin fahamsan qiimaha isku-duubnida. waxbarashadiisa wuxuu ku bilaabay iskuul hoose, halkaas oo macallinkiisa ugu horeeyay uu ku siiyay magaca Nelson. magaca waa mid Ingiliish ah, maadaama ay caado ahayd in carruurta madowga loo bixiyo magaca reer Yurub. Mandela iyo halganka ka dhanka ah midabta koorka. markii uu weynaaday oo uu u soo wareegay magaalada Johannesburg, Mandela wuxuu arkay cadaalad darrada ka jirta nidaamka apartheid, nidaam dowladeed oo dadka caddaanka ahi u sameeyeen sharciyo lagu takoorayo dadka madowga. sanadkii 1944, Mandela wuxuu ku biiray ururka ANC oo lagu soo gaabiyay African National Congress, isagoo ka mid noqday aasaasiyaashii ANC Youth League. halkaas ayuu ka bilaabay halgankiisa siyaasadeed, isagoo abaabulay mudaaharaadyo iyo ololyo siyaasadeed. markii uu arkay in habnabadeed aan lagu gaaraynin cadaalad, wuxuu bilaabay inuu taageero halganka adag. sanadkii 1961 wuxuu ka mid noqday aasaasiyaashii Umkhonto weZizwe, garabkii hubaysanaa ee ANC. maxkamadihii iyo khudbaddii aan ka ahayd sanadkii 1962, Mandela waa la xiray. intii lagu jiray Riverina Trial 1964, wuxuu jeediyey khudbad taariikhi ah oo uu ku yidhi, waxaan u halgamayaa sinnaanta iyo dimuqraadiyadda dadka oo dhan. waa himilo aan diyaar u ahay inaan ku noolaado, haddii loo baahdana diyaar baan u ahay inaan u dhinto. khudbaddiisaas waxay gabsatay qalbiyada malaayiin qof oo dunida ku nool, waxayna ka dhigtay Mandela geesi caalami ah. waxaa lagu xukumay xabsi daa'in. xabsiga Robben Island 27 sano oo samir ah. Mandela wuxuu qaatay 27 sano xabsi ah. sanadahaas badankoodana wuxuu ku jiray jasiiradda adag ee Robben Island. xabsigaas wuxuu ahaa meel adag oo lagu igaabi jiray maxaabiista siyaasadeed, shaqo adag, cunto liidata iyo cabsi joogta ah. laakiin Mandela ma niyad jabin. wuxuu ku sii jiray akhris, qorid iyo baaridda maxaabiista kale. wuxuu noqday hogaamiye xabsiga dhexdiisa ah. dadka kalena wuxuu ku dhiirigelin jiray rajo iyo dulqaad. dunida inteeda kalena waxay bilaabeen ololyo lagu dalbanayo sii deyntiisa. magaciisa wuxuu noqday astaan caalami ah oo dulqaad iyo cadaalad ku salaysan. xorriyadda iyo madaxtinimadiisa ugu dambayn kadib cadaadis caalami ah iyo kacdoono gudaha ah,
dowladdii midabta koorka waxay gasab ku noqotay inay bedesho siyaasadeeda. sanadkii 1990 Nelson Mandela waa la sii daayay kadib 27 sano oo habsi ah. sanadkii 1994 waxaa la qabtay doorashadii ugu horeysay ee dimuqraadi ah ee Koonfur Afrika, waxaana madaxweynaha loo doortay Nelson Mandela. taas waxay ahayd markii ugu horeysay ee nin madow ah noqdo madaxweynaha dalkiisa. madaxweynenimadiisa Mandela wuxuu hooga saaray nabadda iyo dib u heshiisiinta dadka caddaanka iyo madowga ah, dhismaha dowlad dimuqraadi ah, horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka. nolosha kadib madaxtinimada iyo geerida. Mandela wuxuu hilka madaxtinimada hayay ilaa 1999. intaas kadib wuxuu diiradda saaray nabadda caalamka iyo la dagaalanka cudurka HIV. 5 Sebtembar 2013 Mandela wuxuu ku geeriyooday da'da 95 sano. geeradiisa waxaa u borordeegay dunida oo dhan, madaxda caalamka, dadka caadiga ah iyo xitaa carruurta. Mandela wuxuu dunida kaga tagay casharo badan, balse mid ka mid ah kii ugu gaalisanaa waa geesi ma ahan qof aan weligii afsan, balse waa qofka ka adkaada absidiisa. qisada Mandela waa mid aan la ilaawi karin. waxay bixinaysaa in dulqaad, rajo iyo geesinimo lagu jabin karo cadaalad darrada ugu adag. ugu dambayn, Nelson Mandela wuxuu ahaa nin ka yimid tuulo yar oo miyi ah, balse noqday astaan caalami ah oo dulqaad, nabad iyo sinnaanta bini'aadamka. qisadiisu waxay dadka baraysaa in hurriyadda ay mudan tahay in loo huro nafta. Mandela wuxuu ahaa madaxweynihii dadka, balse kasii muhiimsan wuxuu ahaa aabihii nabadda iyo midnimada. Never give up. mar kale, never give up. anigoo ah Majid, nabadgelyo.